shirkadda Amal Bank ayaa kulan soo dhaweynaa waxay magaalada Garowe ugu sameysay qorayaal iyo abwaanin ka qayb galaya bandhigga buugaagta carwada ee Garowe laga furay. waa kan mar kale Maxamuud Cabdinaasir soo faysana warbixinta warkani Garowe nooga soo diray. maamulka guud ee shirkadda Amal Bank ayaa kulan soo dhaweynaa magaalada Garowe ugu sameeyay ilaa 60 iyo dhowr bahda qorayaasha Soomaaliyeed kuwaas oo ka kala yimid magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa, Kismaayo iyo dalka dibadiisa isla markaana u yimid inay ka qayb galaan bandhigga carwada buugaagta Garowe ee sanadkan. mas'uuliyiin ka tirsan Amal Bank, wasiir ku-xigeenka waxbarashada Puntland, qorayaal, abwaaniin iyo marti sharaf kale ayaa kulanka ka soo qayb galay. soo dhaweyn iyo kulan casho kadib waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah qorayaasha oo sheegay inay ka mahadcelinayaan maamuuska Amal Bank isla markaana ay ku faraxsan yihiin imaatinkooda magaalada caasimadda ah ee Garowe. waxaan ka mahadcelinayaa sida horeba loo yiri cidii soo qaban qaabisay kulankan iyo ka dambeyn galaynaba Maxamed Sheekh iyo maxadka kale ee soo qaban qaabiyayba waa u mahadcelinaynaa. oran mayno marti baanu nahay, oran mayno oo halkii martida laga oran jiray halkani ma aha. martidu waa marka ummadaydan isku af ahayn oo isku diin ahayn oo isku dhaqan ahayn aad u tagto ayaad marti noqonaysaa. laakiin kullayba halkan marti oran mayno. waana ilaahay mahadii waxayna kulmiyay waa aqoon aynu isku waafaqsanahay inay wax tar tahay. madalla badan oo baa jiro kale lagu kulmo oo hawshooda leh, laakiin tan aqoon bayna kulmisay. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. kadis bay igu ahayd inaan soo baxo oo in ka yar 10 casho ka hor ayaa la ii sheegay book fairka. runtii diyaarna uma ahayn, laakiin waan isxilqaamay inaan imaado. sidaana waxaan u sameeyay umaan sameyn Maxamed iyo Skansan iyo maxaan ku iraahday cid kale toona aniga ayaa runtii ogaa inay dawo ii noqonayso haddaan imaado. wayna ii noqotayo intan qof haddaan eegayo waliba dhalinyarta ayaa already aan ogahay inay indhahaygii iyo shucuurtaydii wax ka bedeshay. saaka waxaan fadhiyay hudaalkii aan ku soo degnay in 2 saacadood baan dabada fadhiyo hawada ayaa ii noqotay quraac. marka waad iska fahmi kartaan xiisaha aan u hayay dalka iyo waxa aan u soo degdegayo u soo baxayo. gudoomiyaha shirkadda Amal Bank Saciid Cali Shira ayaa tilmaamay in Amal Bank ay mar walba saaxiib dhow la tahay bahda qalinleyda iyo aqoon-yahanada Soomaaliyeed isla markaana ay gacmo furan ku soo dhaweynayaan. Amal sida uu sheegay Cabdifataax saaxiib baan la nahay bahda aqoonta oo dhan jaamacadaha iyo qalinleyda labadaba. waxaanu aaminsanahay qalinleydu inay door muhiim ah kaga jiraan Soomaaliya, inay taariikhdeedana kaga soo jireen, maantana kaga jiraan, mustaqbalkana ay kaga jiri doonaan. waxaanu aaminsanahay qalinku iyo buugu inuu yahay waxa ugu muhiimsan ee ummad lagu dhiso mustaqbalkeed, lagu kaydiyo taariikhdeed, ummad lagu jiheeyo, lagu ababiyo jiilka soo kacaya. marka haddii aanan qayb ka noqon ababinta jiilka soo kacaya, kaydinta wixii hore haginta mujtamaca, waxaan isleeyahay ama la meel gaari mayso. insha Allah waa si buuxdaan uga qayb qaadan doonaa barnaamijta oo dhan. waxaan rajaynayaa xafladan inaysan noqon tii u dambeysay sida Maxamed sheegay. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Puntland Dr. Maxamed Cali Faarax ayaa gabagabadii kulanka kelmado kooban jeediyay isagoo bahda hal abuurka Soomaaliyeed uga mahadceliyay booqashadooda magaalada Garowe, wuxuuna ku tilmaamay mid sare u qaadaysa soo nooleynta dhaqanka iyo afka Soomaaliyeed. dawlad iyo shacabba waxaan ku soo dhaweynaynaa Puntland gaar ahaan magaalada Garowe oo bandhigaas runtii ka furmi doona maalinta berita haddii Ilaahay idmo. waxaan rajaynayaa inaad nala qaadan doontaan muddadii aad joogteen iyo maalmaha soo socdaba waqti qiimo badan. dadkii ugu horreeyay baa runtii tilmaamay bandhigga buugaagta ama bandhigyada aqooneed ee kuwan oo kale ay qalinleyda iyo aqoon-yahanadu ku kulmaan oo isugu yimaadaan iyo faa'iidooyinku leeyahay. muna tilmaantay saameyntii aad baan ugu mahadcelinayaa ay leeyihiin bandhigyada noocaan oo kale ah. runtii waxa uu abuurayaa bandhigga noocaan oo kale ah in koboc iyo baraarug uu ku yimaado ama ay ku abuuranto aqoon-yahanka dhalinyarada ah waliba oo u badan runtii dadka maanta ka soo qayb galay bandhiggan saddexaad ee buugaagta ee lagu qabanayo magaalada Garowe. Maxamuud soo faysane wararka warbaahinta SBC magaalada Garowe.